Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday 3 wiil oo dhalinyaro ah oo lagu helay dambi ah inay kufsi wadareed u geysteen wiil 13 jir ah, waxaana xukunkii ugu horeeyay oo noociisa ah oo ka dhacay gudaha Puntland, waxaana maxkamaddu xukunkan u cuskatay shareecada Islaamka iyo axaadiista Nebiga sida uu sheegay garsooraha maxkamadda Cabdinaasir Maxamed Cali. Xukumayaasha oo lagu kala magacaabo Xuseen Shamiil Maxamed oo 16 jir ah, Sakariya Cabdiraxmaan Siciid oo 16 jir ah, iyo Bashiir Maxamed Cali oo 20 jir ah ayaa kufsi wadareed kula kacay Cabdiraxmaan Cabdifataax Sheekh Xuseen oo 13 jir ah. Dibnaha falka loo geystay ayaa qoyskiisa waxay ka dalbadeen in shareecada Islaamka lagu qaado dadka ka dambeeyay falkan. Gaalkacyo waxaa sanadkii 2019 ka dhacay kufsigii ugu saameynta badnaa oo loo geystay gabadh 12 jir ah oo lagu magacaabi jiray Caaisha Ilyas Aadan, kadibna markii la iskugu daray kufsi iyo dil. Puntland ayaa bishii Febraayo ee 11 sanadkii 2020 xukun dil ah ku fulisay 2 nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen kiiskaasi.